waqti bay u baahan tahay waxaan u baahanahay inaan u samiro waxaan u baahanahay inaan u dulqaadano waxaan u baahanahay wadajir iyo iskaashi inaan kaga baxno hawshaas haddii aynaan isu kaashan haddii aynaan mid noqon inteena mabdi'iyan aaminsanay way ka gungaaraysaa laakiin waqtigaan u dheeraanaya haddiise aynu midoono oo mid noqonno waxaynu ku guulaysanaynaa inaynu waqti yar ku soo kabanno oo 20 sanadood ee ummadaha ama beelaha dariskeenaba ah inaga horreeyaan aynu ku soo kabanno muddadii aanu joognay ama muddadii imika aanu anagu haynay maamulkii aad noo dirsateen qiimaynteeda waxaanu qabanay idinkaa iskale haddii aad u aragtaan inaan waxba qaban awooddeeda idinkaale inaad nagu beddeshaan oo aad cid kale oo wax qaban karta u dirsataan haddii aad aragtaan inaanu wax qabannayna waxaad aanu xaq idinku leenahay inaad iskaaga barbar taagtaan oo inta noo dhiman inaanu dhammayno ama ku guulaysano haddii ilaahay idmo aad nagu taageertaan waxaa muhiima oo aan jeclahay inaan ka sheego iyo inaan isku khaldin mabda'a iyo shakhsi SSC waa wax aynu wada abuuranay oo wada leenahay waxaa muhiima inaynu wada ilaashano in aad ka ilaalisaan cadowga burburinaya inaad annaga naga ilaalisaan haddaad u aragtaan inaan xumaynano annaga shalaytaadna doorateen berritana waa iska tegaynaa laakiin SSC waxaan rabnaa inaanu ka dhigno waxaynu kala dhaxalno oo aynu dadkeenna ugu shaqayno dadkeenna ugu adeegno xagla toosiyey shakhsi weeye idinla mid baan dad badan baa wax dhaliilaya dadka wax dhaliilaya qaarna waxa weeye kuwa doonaya dhaliishaas ay dhaliilayaan u isticmaalaya inay wax ku dumiyaan kuwana waxa weeye kuwa ay daacad ka tahay oo doonaya inay wax hagaagaan waxaa badan dhaliishooduna badan tahay kuwa raba inay wax dumiyaan waxaan idiin sheegayaa SSC wax maxay qabatay iyo SSC maxay tahay qofna haddaad aragtaan waa qof xun weeye haddaad aragtaan xagla toosiye qof dhaliilaya oo le waa nin xun ama muxuu qabtay anigoo la dhaliili karaa shakhsi ahaan anuu shakhsi baan laakiin SSC idinkaa iska leh ka SSC dhaliilaya waxa weeye anagu gruubka iyagan iminka hawsha aniga iyo saaxiibaday oo maxamuud iyo axmed iyo ay hadday nagala joogaan hawshaan ugu dhacaysa haddaad na garab gashaan insha allah waanu guulaysano qolooyinka naga dambeeya yaa si raaxo iyo wanaag leh wax u maamulaya annagu waxaan nahay halkan baanu ku jirnaa waddaanu bannaynaynaa dhib baanu annagu yaanu qabnaa dhibka waxaan jeclay inaad naga taageertaan oo nagu taageertaan marlabaad ku celinaya haddii sanad ka hor aynu ka liidano nabaaciya guryaha ingiriiska aadi haddaynu ka wanaagsannahay insha allah sanadkiisa meeshaynu hadda joogno meel ka wanaagsan baynu joogina waana hubaa insha allah inaynu tegino SSC waxay u taagan tahay nabad waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliyeed waxay u taagan tahay calanka Soomaaliyeed waxay u taagan tahay dawladnimo Soomaaliyeed inta in la helana waa ka shaqeynaa hadii halka dhigo SSC waxay og tahay ama aaminsan tahay sida keliya ee dhibaatada Soomaali weyn haysata looga bixi karo inay tahay in la helo dawlad loo dhan yahay oo wanaagsan
oo wax ka qabata mushkiladaha jira waxay kaloo SSC aaminsan tahay dawlad kor laga soo dhisay oo meelaha lagu soo dhisay banaanada oo dadka dusha lagaga keenay inaanay xal u noqonaynin inay wax ka qabato dhibaatada Soomaaliyeed SSC waxay aaminsan tahay kuna talinaysa mar walba cid kasta oo aanu aragnana aanu kula talinaa hadafkeegana ah in dawlad Soomaaliyeed lagu heli karo in laga soo dhiso hoosta oo kor loo soo wado waxaan aaminsanahay in meel kasta oo Soomaaliyeed gobolkeeda ay soo dhisato amnigeedana soo socto waxaan aaminsanahay inaan beelna beel khasab gurigeeda ku joogi karin waxaan ku codsanaynaa anagoo weliba dhiig Soomaaliyeed nacab markasta oo aanu hadallo iyo meel kasta oo ka hadalno u sheegaynaa beesha Soomaaliyeed ee guryahayga ku sugan inay ka baxdo si nabadgelyo waxaan idin sheegayaa boqolkiiba 70 deegaankeena in SSC gacanta ku hayso boqolkiiba 30 in ay ku sugan yihiin maleeshiyaad khasab ku jooga boqolkiiba 30 ka waxa ka mid ah caasimadii SSC Laascaanood